waxaynu ku naalaa ama dhulkan uu ku yaalaa marinada afarta marin ee adduunyada ugu muhiimsan ee la isu maro marka bini'aadamka adduunyadu ay badeecadaha isweydaarsanayaan ama maraakiibtu marto Asia ama Far East iyo Europe iyo Africa bay isku xidhaan berberi shaqadu waxay ka abuurantaa maalgashiga marka meel maalgashado ay shaqo abuurantaa marka horta shaqo abuur bayna geliyeen walaashan xeer dejintuna labada goloba sharciyad buu leeyahay way ansixiyeen goobjoog baa aydin waliba majority bay ansixiyeen ansixinta marka ay ansixiyeen adduunku muxuu naga baatay isweydiinta military ahaan saldhigani wuxuu kiciyey in magacii Soomaaliland kor u qaado haddii cid lagu xirayana anigu diyaar ah haddii ay khalad tahayna anigu khaladka keli ku ah haddii aan saxayna ilaahay ugu mahadnaqaya ilaahay kelmadda saxa ilaahay waafajiyay berberi way dayacnayd kada berberi 25 sanadood baan haysan halkii ay ugu nimid ay xog kama inaan dareemay sidii ay ugu nimid ay u haynay haddii la liso sanad dabadeed oo aan sidaan ahayn 400 mitir mar iyo 400 mitir oo kale ayaa lagu maalgelinaya iyo qalabkeedii deetana 30 sano kadib baad la wareegaysaa adoon kareeba taas weydiiday kulli anagu markaan xafiiskan furnay waxaanu sii dardargelinay inaynu xagga mashaariicda la xoojiyo magaalada berbera xarunta gobolka saaxil waxa ay ka mid tahay magaalo xeebeedyada qadiimka ee ku suntan taariikhda iyo xadaaradda mandiqada geeska Afrika gaar ahaan waxa ay berbera caan ku tahay ganacsiga iyo isku socodka caalamka waxaana muddo dheer hoy u ahayd quwado shisheeye oo ka soo talin jiray mandiqada sida dawladdii islaamiga ahayd ee Cismaaniyiinta loo oran jiray waqtigana loo yaqaano Turkiga Masaarida Ingiriiska Mareykanka iyo Ruushka waxaana berbera ka dhigay inay noqoto goob loo soo baratamo berbero ah magaalo ganacsi oo isku xidha gacanka Carbeed Yemen Afrika ilaa Yurub iyo goobta ay berberi ku taalo oo goob istiraatijiya berberi waxay ahayd marinka ugu weyn markaad eegto dalkan Somaliland waxaynu ku naalaa ama dhulkan uu ku yaalaa marinada afarta marin ee adduunyada ugu muhiimsan ee la isu maro marka bini'aadamka adduunyadu ay badeecadaha isweydaarsanayaan ama maraakiibtu marto marka intii ka dambeysay markii la furay qanaatu Suez ama Suez kanaalka waxaan u maraynayaa 1600 iyo dhowr iyo 90kii ilaa ahayd haddaan qaldanayn ama aan wax kale ilaawin intii ka dambeysay waxay noqotay meel isha lagu eegto lagu hayo marka xaggan waxa weeyaan badii casayd baa soo maraysa xaggan badii cadmeed baa ka xigta Indian Ocean-kii baa dhinacan kale ka xigta marinadii muhiimka ahaa ee adduunyada badeecadeeda iyo saliidda gaar ahaan waxa u socda Yurub marinada Hormuz iyo de halkaasii soo maraan oo khaliijkii iyo Persian Gulf-kii ama marinkii Persia yay ku haysaa dhulkana way isu dhow yihiin inta berberi u jirtay iyo inta misalan badyarta cadmeed iyo ay isu jiraan khaliijka dhulkaas marka dunida imika way kibirtay oo maraakiib waaweyn iyo adduunyada dhaqaale la isku haystaa iyo taas ahmiyad kale waxay ahayd caasimadii ugu horeysay ee uu yeesho dhulkan Somaliland waxa ku taala buqcad marka la eego Middle East iyo Africa iyo bari iyo galbeedba waxay ku taala meel very strategic oo si kastaba aan looga maarmayn adduunka uga maarmayn maalin walba waxa mara horteeda dekada maxay tahay wadada badda ah oo berbera waxoogay u jirtaa cadan iyo berbera dhexdooda boqolaal markab oo tiiba walba leh mid dagaal leh mid baxmusare mid jinsi kasta ayaa mara marka waa meel aad iyo aad u ah lama huraan wey
very important. marka aynu eegno magaca berbera buugaagta qaar qorayaan in la maqlay markii ugu horreysay qarnigii 15aad dhammaadkiisii waxaa jiray in qorayaashii carbeed u yaqaaneen xeebta Soomaalidu degto xeebtii Berberka hase ahaatee waxaa jira aragtiyo kale oo meelo kale aaminsan in magacani uu ka yimi si kastaba ahaatee waxaynu wada ogsoonahay in magaca berbera noqday magaca guud ahaanba dunida caanka berberi waxa ay ka mid tahay magaalooyinkii ugu horreeyay ee ka hirgalay xeebaha Soomaaliland waxaana jira dhismayaal ay sameeyeen quwadihii qabsaday berbera sida kuwii Turkigu ka dhiseen oo ay ka mid ahaayeen masaajido iyo guryo kuwaasi oo ilaa maanta la munaafacadsado sanadkii 1842 ayaa nin loo oran jiray Janaston booqasho ku yimi magaalada berbera warbixin uu qoray ayaa waxa uu ku sheegay in magaalada berbera tahay goob ganacsi oo dad badan u iman jireen sidii ay wax uga iibsan lahaayeen waxa kale oo uu sheegay in ilaa iyo 5,000 oo guri ay ku yaaleen waqtigaasi 1842 magaalada berbera dadka ku noolna ay ahaayeen Arab Turki Hindi iyo dadyow kale oo inta badan sababa ganacsi u yimi magaalada berberi waxa ay leedahay xilligaasi dekad aad u muhiima waxaana laga dhoofin jiray waxyaabaha ay ka mid ka ahaayeen xoolaha nool hargaha foolka maroodiga baalka gorayada subaga iyo waxyaabo kale arrintaasi ayaa ka dhigtay magaalada berbera mid dadku aanay ka maarmin oo meelo aad u fogfog ay uga iman jireen waxayna ka kala iman jireen dalalka Carabta Beershiya iyo Shiinaha marka la eego qiyaasta dadka ku noolaa magaalada berbera qarnigii 19aad dhammaadkiisii Master Drake Brugman oo cilmi baaris xilligaasi u yimi berbera waxa uu ku qiyaasay ilaa 40,000 oo qof xilligaasi inay ku noolaayeen iyadoo xilliyada xagaaga ee inta badan magaaladu kulushahayna tirada dadkaasi hoos u dhici jirtay waqti ku beegan sanadii 1874 waa xeebaha Soomaaliland qabsaday maamulkii Masaarida dawladda Masar kumay raagin xeebaha Soomaaliland ee 10 sano kadib sanadkii 1884 ayay ka guureen isla sanadka waxa dhacday in Ingiriisku uu soo diray xeebaha Soomaaliland askar ilaaliya sanadkii 1875 ayaa Ingiriisku heshiis magaalada berbera kula galay oday dhaqameedyadii Soomaaliland heshiiskaasi qodobadii ugu muhiimsanaa waxa ka mid ahaa in Ingiriisku Soomaaliland ka ilaaliyo dawladaha kale ee damcu ka hayo isla markaasina leh awood ciidan oo Soomaaliland ka baaxad weyn haddaba maamulkii Ingiriiska ee Soomaaliland soo galay ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan waxa lagu tilmaamay inuu rabay Ingiriisku inuu ka faa'iideysto dekadda weyn ee muhiimka ee magaalada berbera oo ay uga dan lahaayeen in ay u fududeyso ganacsiga u kala gooshaya India iyo Yurub iyo in ciidamada Ingiriiska ee jooga cadan oo Ingiriisku haystay loo helo cunto ku filan sida hilibka xoolaha iyo subaga iyo biyo macaan oo qiimo jaban waqtigaasi laga helayay magaalada berbera waxay berbera iskaashan jireen hadaba caasimadii Yemen ee cadan qiimo weyn waxa ugu fadhiday Ingiriiska way saldhig military buu kula had saldhiga military oo laga ilaalin jiray qanaalka Suez iyo bariga dhexe iyo bariga fog maraakiibta iyo waxa ay soo maraya berbera ayaa laga ilaalin jiray cadanise waxay ahayd meel aan biyo lahayn macaan male dhuxul may lahayn waa saxare xaabo may lahayn marka waxa laga siin jiray Somaliland waxa looga keeni jiray xoolaha nool bay'ad mushtarkii ugu horeeyay ee xoolaha nool dhoofistooda Allah yarxamu awowgay Ismaaciil gaad cadde ayaa qandaraaska lahaa inuu bil walba ka iibiyo ama geeyo saldhiga military ee cadan Ingiriisku ku lahaa intaasoo boqol neef oo xoolo ah intaasoo jawaan oo dhuxula intaasoo xaaba ah iyo intaasoo booyadood oo biyo macaan marka bil walba xagaas u sii qaadi jiray soo noqodkana wuxuu ku soo bedelan jiray wixii kale ee loo baahnaa dhar iyo sonkor iyo shaah iyo bariis iyo wixii loo baahnaa bisan ku soo bedelan jiray marka horta berbere waxay lahayd muhiimadaas ay lahayd waxay caasimadahayd waqtiga aan xitaa baabuurtu saani u mari jirin buurta Sheekh ma ahayn sida maanta ay tahay wadada ballaadhan la isku dhaafayay baabuurta waaweyn isku dhaafayso ma ahayn waxay ahayd meel ama lugtuna marto waxaana wax lagu rari jiray baqal boqol ayaa lagu rari jiray
marka la geynayo barasaabka markuu guurayo ee uu sheekh u wareegayo xagaagiina waxa laga sii horeyn jiray wixii day gaadida waqtigaas socday ugu itaal roona ayaa lagu qaadi jiray meelaha qaar kursi baa laga talaabin jiray oo lagu dhaafin jiray soo noqodkana saasay ahayd berberi markaa waxay ahayd meesha isgaadhsiinta lagala xidhiidho waxaa jiri jiray isgaadhsiin la odhan jiray dhiidhaadaa la odhan jiray ya dhiidhaa waxaa loogu bixiyey dot dash dhidhadhaadhaa dhidhidhidhidhid sida si la iskula hadlo ayay ahayd waxay ka horeysay telexkay ka horeysay oo faxkay ka horeysay oo internetkay ka horeysay laakiin intaa ka horreeyay waxa la iskula xiriiri jiray touch leedka big ayaa qofka kale markuu ilayska arko ayuu akhrisan jiray xarafkii markaa leedka lagu tusay markii dambana dhawaaq bay ahayd oo dhiidhaa oo waayar bay yeelatay oo dhiidhaadaasu kelmad walba waxay lahayd xarafkaas si loo garto xaraf wuxuu lahaa astaan gaara awowga Yuusuf Ducaale Amare wuxuu ahaa odayaasha ama odayga dhiidhaada u sareeya markii dambena boosta berbera odaygii haystay buu ahaa ilaa uu retire garoobay markii dambena uu geeriyooday marka horta berberi waxay magaalo aad iyo aad qiimo weyn u leh waxa deganaan jiray maraakiib baa ka gooshi jirtay halka oo ay leeyihiin sharikado waaweyn waxa labada berbere iyo cadan bay kala joogi jireen marka way isweydaaran jireen maraakiibtu marna xagana u soo socon jireen marna way isweydaaran jireen markabkii bis qaxwaji magacyo lahaayeen oo waan xusuusnahay yaraantaydii wayda awowna uu de shaqooyinkiisa ahayd marka berberi waxay magaalo camiran waxa joogay Turki waxa joogay Masaari waxa joogay Armenian waxa joogay Hindi badan way hindida u shaqeyn jirtay Ingiriiska dukaamo badan oo Abu Cariish iyo Maxamed Hindi iyo waxalbahaye iyo dukaamo caynkaas jiray markii dalka Soomaaliland xornimadiisa ka qaatay maxmiyadii Ingiriiska sanadii 1960 ayaa dawladda Ingiriisku halkii u dambeysay ay ka ambabaxaan ahayd magaalada Berbera inkastoo magaalada Berbera ahayd magaalo aad u taariikhi isla markaasina aad u horumarsan oo dhismayaal badan oo casri ah ayaa waxa u dheeraa muhiimadda ay u leedahay dhaqaalaha wadanka ilaa markii Soomaaliland ku biirtay Soomaaliya 1960 ee la baxay Jamhuuriyaddii Soomaaliya ayaa haddana Berberi noqotay meel ay caalamku indhaha ku hayaan waxaana dawladihii xilligaasi ka talinayay dalku ay u arkayeen in Berberi tahay meesha ay caalamku kula loolami karaan istiraatiijiyad ahaan waxaana taasi ay keentay in xilligii dagaalka qabow ee adduunku u socday in labadii wadan ee isku haystay awoodda caalamka Mareykanka iyo Ruushku ay dawladdii militariga ahayd ee taliskii Siyaad Barre marba mid ay ka kireysay saldhiggii magaalada Berbera dhaqaale badanna uu ka soo galay dagaalkii qabowga markuu furmay Mareykanka iyo Ruushki Berbera Ruush baa laga jiray 70-yadii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ciidamada ayaa ka kireysay waxa lagu kireeyay ilaa 100 milyan sanadkii oo 60 milyan hub military way dhistay Berberi marka Berberi had iyo jeer waxa weeyaan meel ahamiyadeeda iyo magaranaysa waxeeda leh strategic baa oo ninka doonaya inuu adduunyada qaybtiisa ilaashado ama maraakiibta haato ama badeecadaha haato ama ha ahaato saliidda la iibgeynayo ama waxa kale adduunyada laga iibinayo waa meel marina oo cidda fadhida ay isku aragto inay ahmiyad u leedahay Ruush wuxuu ku lahaa saldhig weyn oo Berbera geesta badda iyo geesta maxay hayto airport kaba ah xagga cirka iyo badda labadaba ku lahaa muddana wuu joogay faa'iido badanna waa ka helay de waynu ku gorgortanay oo markaa madaxweynihii markaa joogay Siyaad Barre wuu ku gorgortamay wax leeyahay wuxuu doonayo dhanna wuu ka helay dhaqaale waanu ka helay maxay haytoy ciidanka xagga ciidankana waxaan ka helay kaalmo weyn baynu ka helay tababar
ayuu siinayey wuu hubeynayay waxbuu barayey gees kasta caawimo fara badan baynu ruush ka helnay xataa markii abaartu dhacday waa dayarado waaweyn buu keeno dadkii abaartu heshee xaggan somaliland joogay dayaradaa lagu goray oo waxa la geeyay xagga koonfurta حتى وحو قاد أرجع إياه آخر سومر هو قاد قرر. إذا كي هو أتكا ترى ده هلا بدنا يأقون توقو بدن لها أفريقيا أيروشكو نوسمي إنك استوى إذا ماذا سومالي ده هاي هاتنا لنعيه خلنا كوحنا إنه أي كوحنا عربتا وسركال بادر كيسا عربتا وحكو برتي وعراق أما مصر كصوب هاي مركي دمرنا تخصص تجي روش أما طلياني كصوب هاي ومركي دمرنا تخصص تجي مركا إنك استوى إنه مالك اللي بدون أقوم بدنوا لهاي ضد الصومالي دون حاول يكون في عين عبر الصدى ويكدويهين ضد يوجا أفريقيان كي عربتي وحصل كوني مكودو ملا والله بدون لكن كواهرة أنت أنا نقول جاري ويكدويناي وحكوا حي مريكان كانوا وحول النور دسي سبوا إنك صار روش كده كده دسي وحكوا كردي مريكان وحكوا كردي وواحد كملها هل كان مركب كبابور تيو وحيابه ترانسبورت كالسعودة لغة أي أنتو كسر حدا بابور كي مركب كي كسر دقيقة أو يسوي السعر كسر دقيقة وصو وهل كسر منطقة قدير استعمالوا بابور دبلها إنه كأنه مراكب تدبر فرع رو قليلا وكسر حدا أنا لكم فرتان وكسر مركب فإذا حاجة دقالها أنا ونرجع وينشريو سيدان مقلي أما عن هبابة لا يجوروني 4 مليون دقالوا إنه سيجر 6 مليون حق ميليتري أيو إنك عاون شري أو ما بدنا هو مريكو نسيجر dagaalkii lagula soo noqonayay madaxbannaanida Soomaaliland ee 1988 ayaa magaalada Berberi ahayd meelihii dagaalka adag ku dhex maray ciidamadii taliska Siyaad Barre iyo ururkii SNM taasi oo Berberi ahayd magaalooyinkii ugu dambeeyay ee lagu xoreeyay taliskii Siyaad Barre oo ciidan xoog loo fadhiyay markii Soomaaliland ku dhawaaqday inay la soo noqotay madaxbannaanideeda 1991 waxa ay magaalada Berberi noqotay magaalooyinkii lagu aasaasay qarannimada Soomaaliland berbera markii ugu horeysay ee colaaduhu dhaceen waa meeshii nabadda laga waday oo shirkan burcayaan maqasheen waxa ka horeeyay shir berbera la isugu yimid oo beelaha Soomaaliland la isugu yimaadeen waa meel khayr qabta maaha marin caalamiya iyo forumka marka laga hadlay nabadda aynu ku faanay maanta Soomaaliland ay ku faantay labada goor mar waa shirka sheekh waa shirka boorame iyo kabroo markii ugu horeysay waxa la isugu yimid berbera 91kii halkaas ka dhashay shirkii burca beelaha Soomaaliland isugu wada yimaadeen oo lagu ballamay laakiin gobol xaaq wuxuu ka dhacay berbera kii dambe ee beelaha Soomaaliland boorame isugu yimaadeen nashaarku ka dhacay waa magaalo khayr qabto oo ka khayr badan magaalooyinka kale marka waliba markuu yimaado ama doon waliba timaado ee aragta ammaanka yaala iyo serviceka yaala ayaa wuxuu wadankiisa ku celinayaa berberi waxa meel berbera la yiraahdo tiri oo Soomaaliland la yiraahdo dabadeedna dadkiisii adduunka hadda wadan tagto waxa ku soo aragto waad garanaysaa marka de maraakiibta maalinta ilaa maanta waxay ka bariin malaayiin annagu aasaaskii aan dhignay ee ragaygi maalinta la geeyay safiiraan maanaanahay shaqaale sida madaxweynuhu wareegku dijeetu lagu magacaabay 25 inuu beelaha Soomaaliland oo ka wada kooban baan ahayn maanta mushaharka arkaysan meeshan toonkan weey meeshii markii madheero ciidamadeena ku jireen adduunku waxay tabayay sida Faransiiska oo kale ay yimaadeen ciidankeenii ugu horeeyay ee wax looga keenay ayaa ahayd marka dee kama sheekeyn karo waxyaabo badan bay dheertay berberi
madaxweynaha hadda ee Soomaaliland oo noqday madaxweynihii afraad ee Soomaaliland ay yeelatay Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo ayaa tan iyo markii xilka loo doortay sanadii 2010 waxa uu ku dadaalay sidii dalkan Soomaaliland uu saaxiibo cusub iyo siyaasad furfuran u la yeelan lahaa beesha caalamka waxaanu safar badan u tagay wadamo badan oo caalamka wadamada Carabta iyo Soomaaliland ayaa yeeshay xiriir fiican iyadoo madaxweynaha Soomaaliland safar badan ku tagay wadamada isku taga Imaaraadka Carabta kulamadaasi ay Soomaaliland la yeelatay Imaaraadka Carabta ayaa Soomaaliland u saamaxay inay ka hesho caawimo iyo maalgashiyo labadaba sida dhismayaasha madaarada goobaha waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaale waxaana yimi xiriir diblomaasiyadeed iyadoo Soomaaliland wakiil ama safiir ku yeelatay markii uu horeysay dalka Imaaraadka Carabta xafiiskan waxa la furay aniga madaxweynuhu ii magacaabay bishii June 30 sanadkii 2015 waqtiga uu ii magacaabay saad xustay Jamhuuriyadda Soomaaliland xafiis kuma aynu lahayn dalka Imaaraadka marka waxa muddo nagu qaadatay kulli intii aanu processkii xafiiska furitaankiisii iyo shuruucdiisii iyo waraaqihiisii aanu raadinay waxaana si official xafiiska loo furay muddo 6 bilood kadib waqtigaas soo ahayd bishii January 2016 muddada uu imika xafiisku furnaa oo aad oran karto waxay ka yartahay muddo 2 sano ah sideedaba marka safaarad la sheegayo ama shaqada safaaradda laga hadlayo waxa ay tahay waa wajigii dalka waa halka marka la tago wadan kasta ay ka dhaleecan karto meesha aad tegaysaa say tahay say u eg tahay maxaa laga helayaa maxaa laga faa'iideeyaa marka kulli anagu markaan xafiiskan furnay waxaanu sii dardargelinay inaynu xagga mashaariicda la xoojiyo waxaa runtii aad loo dhacday matiraba imika 3 jeer in ka badan inay geeyeen mashaariic samafala oo raashin iyo badan xeelad imikadan laftirkeedana waxa ay wadaan mashaariicda inay sii dardargeliyaan waxay dhawaan insha Allah bilaabi doonaan mashaariic 20 ceela oo dhulkan abaaraha aadka u saameeyay in laga sameeyo waxa kale insha Allah keeni doonaan raashin iyaguna lagu taakuleeyo dadka waxa soo dhanida waxay runtii tusaysaa taariikhda soo jireenka inuu wada leenahay dhanka kale waxa xafiisku runtii xoog saaray markaad eegto ganacsiga waad ogtahay oo saan doo sheegay taariikh fara badan bay naga dhaxaysan iyo Imaaraadka taariikhdaasi markaa waxay xusaysaa in dadka waxa ay wadaagtaan ee naga dhaxeeya xoog la saaro oo la geliyo marka mashaariic ganacsi oo ay kamid ahayd iminka mashruucii weynaa imka DP World ee inoogu leeyahay investmentka mashruucan kale iminka iyaguna shirkadahoodii xagga duulimaadka oo Fly Dubai iyaduna runtii bilowday iminka muddadii iminka xafiisku joogayna shaqaynaysay iminkana 7 cisho wada flightskeeda waxa kale iyaguna jira shirkado kale iyaguna ku soo daba jira oo iminka aan wali soo ifbixin laakiin eeganaya DP World iyo sida ay hawsheeda u bilowdo maalgashiyada taariikhiga ee Soomaaliland waxa ka mid ahaa maalgashiga dekadda Berbera ee DP World waxaan doonaa runtii inaan uga caddeeyo sababta aynu u raadsanay in cid inoo maalgeliso ee aynu shirkaddan u dooranay inay tahay koow shaqo abuur shaqadu waxay ka abuurantaa maalgashiga marka meel la maalgashado ay shaqo abuurantaa marka horta in shaqo abuur bayna geliyeen maaha shaqaalahaynu maanta haysana inuu naga yaraado waxaynu rajaynaynaa shaqaalahaynu maanta haysano mid aad uga badani inuu ka dhasho mashruucan oo dekaddu keliya aanu ka dhalanin laakiin dekadda dabaddeeda inuu ka dhasho inay magaaladu caamiranto la soo dego isbeddesho xarun ganacsi noqoto dekadda Berbera 25 sanadood baynu haysan halkii aynu ugu nimid wax kagama inaan darin sidii aynu ugu nimid baynu u haynay haddii la lisado sanad dabadeediyada oo aan sidaan ahayn 400 mitir oo mar iyo 400 mitir oo kale ayaa lagu maalgelinaya iyo qalabkeedii deetana 30 sano kadib baad la wareegaysaa adoon kareenba taa isweydiideen adoon kareenin oo aan oranba kana faa'iido ka doonaya waxaad isweydiisaa hore weyn u haynay sidana way ahayd intan yare ay ahayd 80 iyo 70 un bay maantana tahay laakiin haddii la kareeyo dhis baa ku dhacaya sida ay tahay hadduu ilaahay suurtageliyo oo ay fusho dee 400 mitir marka hal mar wax weey markabkii ugu dheeraayeen uu day nagu soo xidhay aljaabir oo ku soo xidhay 200 iyo xoogaa mitir booha waxa ahayd in dekad oo dhan loo faaruqiyo laakiin maaha kaasayna ka iyo 2 iyo 3 iyo 4 soo xidhaan waa muhiim haddaba maxay dekadda Berberi u noqotay mid caalamku isha ku haya waayadii hore iyo haddaba maxaase dekadaha caalamku ay u yihiin kuwa kala qiimo badan waxa uu sababa
asia ama far east iyo yurub iyo africa bay isku xidhaa berberi ama red sea isku xidhaa marka waxa weeye de meel ilaahay ugu talagalay way ka sareysaa dhulalkaas oo dhan waa artificial dekadaha khaliijka laga sameeyey maxay to iyo tan maxay to Djibouti tan xamar laga sameeyey waxaas waa artificial tan uu natural ilaahay samaystay bay ahaydba marka meel dekad laga sameynayo dooni ku caariday uun dabeetana hareerteeda lagama dhigo dekad lagama dhigo waa la dirsaa waxaa dekad ka dhiga meel ama ka hor joogsada inay meeshaas dekad noqoto laba wax badda dhererkeeda baddu biyaha hoostooda sida dhulkeenu u leeyahay buuro iyo dhul bannaan ayay badda hoosteeduna u leedahay marka meel buura ku dhex jiraan biyaha hoostooda maraakiibtu ma dhex mari karto oo de waxaa ka hor imanaya buurtii baa ka hor imanaysa oo way degayaan marka waxaa loo sahamiyaa meel baddu fog tahay biyuhu dheer yihiin oo markabka iyo maraakiibta halkaa maraysa si waasaca oo nabadgelyo ah ay u soo dhex mari karaan meelaha khatartu jirto ee buurtu soo dhowdahay madaxeedu soo dheer yahay ee laga yaabo in markabku jiirana waxa la dhigaa calaamado biyaha dushooda sabeeyo kubada waaweyn ayaa la dhigaa marka kubadahaas waxay maraakiibta iyo dooniyaha u sheegaan in halkaa agagaarkeedu halis tahay oo aan la marin marka calaamado ayaa loo dhigaa sida wadada loo calaamadeeyo ayaa biyahana maraakiibta loogu calaamadeeyaa iyo dabaylaha meelaha mara berber meel gudan bay ku jirtaa badeedu way dheer tahay oo buuraheena golis ee soo taxan ayaa xagga badda u soo janjeera qaar way dhaafaan oo badday sii dhex galaan oo baddii iyo biyihii bay markaa ay xanibaan maraakiibtii meelaha qaarna buuruhu way ku dhammaadeen oo biyaha ma galaan oo biyuhu wixii mar haddii badda la galo way dheer yihiin oo isu socodka maraakiibta way leeyihiin dabaylna way ka nabad gashaa berberi meelaha qaar ee xagga geeskaa shisheeye Soomaaliya Boosaaso iyo maxaan kula Qardafuu iyo maxay dekada u noqon waayeen lacag ka soo la geliyo noqon maayaan way laba wax baa ka hor yimid badihii oo biyahoodu gaaban yihiin iyo dabayshii oo aanu ogolayn oo ka hor joogsanaysa oo horeba loo sahmiyay inaanay dekado waaweyn noqon karay marka shiishka badan ee Soomaaliland kaga yimaada xagga bariga shishe Qardafuu iyo Boosaaso iyo dhulka kaga yimaada inta afku buk lahaa inta uurku buk lahaa afku bukooda waxaan doonayaa dadku inay fahmaan sababta dacaayada faraha badan leh ay bariga uga imanayso waxa weeyaan dhulka Ilaahay berber siiyay ee Soomaaliland siiyay ee abtiyaaladay siiyay ee ehelkay siiyay ee qarankayga siiyay horta waa la ma jiiranaya marka haddii aan waayo iyana yay helin ay horta dacaayadu u badantay haddii ay helayaan way imka baayaca mushtabay ku jiraan oo way soo dhaweeyaan oo Boosaaso la sameeyo oo meelaha la sameeyo way yiraahdaan uma yeeranayaan nasteexo waa berbera ku xidh uguma turayaan berbera halis baa uga imanaysadan iyo waxaan dacaayadahan la yiraahdaa nasteex iyo maxaa naxdin loogu turayo berbera ma waa xasad marka horta waxa wanaagsan inaynu fahamno maxaa inoo dana
heshiiskii saldhigga militariga ee dowladda imaaraadka carabta iyo somalilan ee magaalada berbera oo labada gole ee baarlamaanka somalilan ee guurtiga iyo wakiiladu ay fadhi wadajir ah ku ansixiyeen 12 bishii February ee sannadan 2017 ayaa somalilan meeqaamkeedii siyaasadeed kor u qaaday. waxaa ogolaaday soo jeedintii waxaa ogolaaday 144 waxaa diiday hal baa diiday halna waa ka aamusay anna ma codaynin sidaasuu ku ansaxay kalfadhigaan caadiga ahayna waa inoo xidhay heshiisyada aan ansixino waa kuwa sharci ninkii doonayaaba haystaa heshiiska dekeda inkastaana wada lahayn haddana golaha wakiilada way wada ansixiyeen golayaashan xeer dejintuna labada goloba sharciyad bay leeyihiin way ansixiyeen goobjoog baa ahaydeen waliba majority bay ku ansixiyeen ansixinta markaa ay ansixiyeen adduunku muxuu naga qaba baata isweydiinta ansixinta iyadii ma negative bay keentay mise positive bay keentay ta isweydiinta u baahan waxa weeyaan waddan baynu joognaa iibinay gaadeer shalayba cidinama qori jirin markii DBO la ansixiyey ilaa 150 wargeyso adduunka oo kuwa ugu waaweyn baa qoray waxaa ka mid ah New York Times, Washington Post, kulli gaadu wax af carabi iyo af ingiriis ku hadla adduunku maanta technology buu noqday waad seer garayn kartaa kii labada gole aan ansixinayn heshiis laba dowladood wada galayn leh heshiiskaasi oo si wada jir ahaa markii dambe qalinka ugu dugeen xukuumadda Somaliland iyo dowladda Imaaraadka Carabtu 19 bishan Maarch ee sannadan 2017 kulan ka dhacay magaalada Dubai waxaa heshiis ku kala saxeexday magaalada Abu Dhabi dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta iyo dowladda Jamhuuriyadda Somaliland heshiiskaas oo koobaya iskaashi dhinacyada amniga dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha dibadda kaas oo ku salaysan go'aankii baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland ka soo baxay 12 bisha February 2017 heshiisku wuxuu ka kooban yahay qodobadan kow dowladda Somaliland oo ogolaansho siisay in ciidamada dowladda isu tagga Imaaraadka Carabtu isticmaalaan madaarka diyaaradaha ee Berbera laba dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo ka dhisi doonta madaar cusub oo ku yaala magaalada Berbera oo ay isticmaali doonaan diyaaradaha rakaabka iyo kuwa xamuulka taasoo micnaheedu yahay inay Berbera yeelan doonto laba madaar jidka isku xidha magaalooyinka Berbera iyo Togwajaale oo dhererkiisu yahay 250 kilomitir ayaa isna ka mid ah mashaariicda la fulin doono mashaariic kale oo la fulin doonayana waxay la xiriiraan biyaha tamarta caafimaadka iyo waxbarashada mashaariicdaas waxaa la fulin doonaa 3 sannadood ee soo socda 3 dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo suuqyadeeda shaqo u furi doonta muwaadiniinta reer Somaliland 4 dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta oo taageeri doonta shirkadaha maalgashiga ee Imaaraadka inay maalgashadaan Somaliland 5 dowladda isu tagga Imaaraadka Carabta iyo dowladda
somalilan oo iska kaashan doona dhinaca ammaanka. wuxuu heshiiskani albaabo cusub u furi doonaa somalilan iyo beesha caalamka. ugu dambayn, waxa kale oo labada dhinac isla garteen in dowladda isutaga imaaraadka carabtu gargaar degdega gaadhsiiso dadka ku tabaaloobay abaaraha. xarunta ciidamada ee dowladda jamhuuriyadda somalilan ay u ogolaatay inay isticmaalaan dowladda imaaraadku dee runtii maaha wax inaga uun inoo ka oo marka hore intaynaan uga gelin tan adduunkao dhan way ka jireen xarumo ciidamo oo kala gedisan. waxay soo bilaabantay dagaalkii labaad ee adduunka, waxay noqotay markii dambena mid markaa dalal fara badan oo dhaqaalahoodu qaar u sarreeya iyo qaar u hooseeyaba ay xarumo ku leeyihiin. tusaale haddaynu soo qaadano jabaan oo kale markii lagaga guulaystay dagaalkii labaad adduunka ilaa maanta waxaa ku yaalla xarumo maraykanku leeyahay oo ciidameed. imaaraadka naftiisa qaatay maanta ee aynu ka kareynayno ama muddada haysan doona airbortkeenna u isticmaali doona xarun ciidan, isaga laftiisu dee xarumo u leeyahay buu sidaa oo kale u kareeyey. sacuudi arabiya kareeyey, wadamada kale ee yurub baa kareeyo, jarmalka oo kale wuxuu ka kareeyey maraykan. base marka la kareynayana waxa weeye in muddo cayiman meel aada leedahay ciidan kale oo waddan kale ahi uu isticmaalo isagoo ilaalinaya shuruucda waddanka iyo shuruucda caalamiga labadaba. labada arrimood oo heshiiska haddii jiraale saldhig u ah, heshiis loo yaqaano maxaa lahdaa kii Geneva iyo kii Vienna labadaba, iyo waddan waliba wixii uu markaa isaguna si gaara u doorbidayo. sababta keentay haddaba in xarun ciidan ama mid ha ahaatay airport ama ha ahaataba mid kale oo military caadi in la yidhaha waa la kareynayaa, waxay ku timaadaa iyada oo la dhaafsanayo kaalin dhaqaale oo cidda wax kareysanaysaana ay iyaduna bixinayaan markaasi ay weydaarsanayaan inay markaasi qadar kira ah ay ka bixiyaan sanad walba. ama haddiiba matalan aanay sanad u bixinayn matalan 10 sannadood ama 15 sannadood ay joogayaan in lagu heshiiyo 15 sannadood inuu noqdo maxaa la yidhahdaa sanadkiiba inta ay bixiyaan, taasoo markaa cidda wax karaysana ay dheersanayso ay ku bedelanayso wixii ay markaasi weydaarsadeen xarunta ay kareeyeen. haddaba markaynu usoo noqno xaruntan waa markii ugu horreysay ee xukuumad somalilan ah muddada aynu jirnay ee rubuc qarniga ah in ay isku daydo inay kareyso xarun ciidan oo ku taala somalilan. 25 sannadood 26 sano waa anigu hadda waa fikirkayga baan siinaya ku salaysan maskaxdayda iyo way aragnimadayda iyo sidaan u darsay mawduucaas. ma wax inoo danaa mise waxaan inoo danahayn. marka waan dhageystay dhowr dhinac, waan dhageystay marka anigu ra'yigii anigu idna aadan ahaan ayaan u dhiibanaya anoo xisbina ku jirin lacagna laygu siin goobjoog iyo meel aan ka ahayn meeshii heshiisyada lagu galayay. laakiin ilaahay ugu mahadnaqaya in heshiiska la galay. waan ku celinaya ilaahay ugu mahadnaqaya in ilaahay berbera u soo jiiday heshiiskaas. 25 sanadood baynu maanta aynu ka soo go'nay cadowgii weynaa ee ina baabi'iyay. halkan maanta aynu joogno waad garanaysaa waxay ahayd meeshan imika cisbitaalku yahay waad garanaysaa. marka cadowgii ibaabi'iyay ee iduqeeyay ee isxasuuqay ee goobtan aynu joogno ka dhigay meel dadka lagu dilo ama lagu gumaysto maanta iigu turi ku farxi maayo. dadkii aan dilay hambadii ka hadhay ayaa iga madax fiiqnaanaysa, ku farxi maayo cadowgaygu. markuu leeyahay waxaan idinka turayaa ama idinka digayaa halista idinka iman karta oo shalay halistii iiga iman jirtay maraakiibtii iyo maxaan ku dhahaa dabaabadihii iyo diyaaradihii aad ugu duqeynaysay. meenan markaaba aanan u baahnayn inaad ka naxdo, meenan markaaba u baahnayn inaad maatada ka naxdo. gari laba kama wada qosliso, nabadgelyada ilaahay baa haya.
laakiin de maskaxna waynu leedahay waxaan anigu ra'yigayga ka dhiibanaya oo aanad haddii cid lagu xidhayana anigu diyaar u ahay haddii ay khalad tahayna anigu khaladkaa keli ku ahay haddii aan saxayna ilaahay ugu mahadnaqaya ilaahay kelmaddaa saxaa ilaahay waafajiyey berberi way dayacnayd Ethiopia waynu isku dheganahay baayac mushtar weyn baa ina dhex mara waynu isku xidhannahay waxa Ethiopia waxyeello u geystaa inagana way inoo geysteen Ethiopia maskax bay leedahay oo way og tahay wixii Somaliland wax u geystaa inay Ethiopia wax yeeleen waynu isku xidhannahay nabadgelyadeenu way isku xidhan tahay badbaadadeenu inaynu wada ilaashano way u baahan tahay marka wax Ethiopia meel lagaga duulo ama wax lagu yeeleeyo Somaliland inaanay yeelaynin Ethiopia way og tahay inana maynaan yeeleen waxa taa ii raaca berberi dekad way noqon oo weligeed bay ahayd haddii ilaahay sida niyadeenu tahay ilaahay inooga dhigo oo ay kobocdo oo la dhiso oo baayac mushtar badan halkaas soo maro waxay u baahanaysaa cadowgan badan ee maantaba doonaya inaanay dekad noqonin u yaraysan maayaan in shil ka dhaco way jeclaysan lahaayeen burcad badeedii haddana ay dib u soo nooleeyaan ee horeba uga taajireen ee dhagxumada u samaysay geeska Afrika oo dhan dhagxumo u soo jiiday in mar kale haddana dib loo soo abaabulo way jeclaan lahaayeen awood military oo maanta Somaliland oo diyaar maanta inoo ah oo iskaga cilnana ma hayno tol adag oo ciidankooda inoo huraya oo aynu iskaashaan buursanana maanta ma haysano waynu samaysan doonaa yoomka ayaan way iman laakiin cidda alaabadoodu meeshan marayso xaq bay u leeyihiin inay waxoodii ilaashadaan waa ilaalin tijaarad ilaalinaysa weeyaan waa ciidan tijaarad dekad iyo isu socodka maraakiibta malihin insurance ama maxay ahayd caymis malihin damaanad bank oonaysa markabkaagu hadduu biyahayga ku dego anaa kuu celinaya oo kuu magdhabaya marka horta in la fikiraa loo baahanya oo la isu dheelitiro ilaa waxba waxay leeyihiin laba dhinac bay leeyihiin laakiinse in loo eego waxtarka weyn dhinaca weyn in laga eego ma xumaantaa badan mise wanaagaa badan mise waa isku dhowdhow yihiin anigu edna aadan ahaan waxaan qabaa in wanaagu badan yahay saldhiggan military ayaa dadka ku xeel dheer arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyaddu ay ku tilmaameen inuu yahay fursad ay u baahnayd Somaliland oo kor u qaadaya mustawaheeda siyaasadeed military ahaan anigu uma arko wax dhibaato ah oo ay waddankeena u leedahay anigu uma arko saldhiggani wuxuu kiciyey in magacii Somaliland kor u qaado oo aniga kula maabkii Somaliland oo dhan ba wiigagan oo dhan laga sheekeynay marka waxa weeye war de Djibouti ba waa tan oo samayso wax faa'iido mooyaane wax xumaana ama naaqusa oo ay la kulantay ma jiro marka laga yimaado wixii kira ah ee marka la bixinayo inuu wadaarsanayno waxa barbar soconaya xaruntan ay kaleysteen lafteeda inay dhisaan ciidan markaasi adeegsanaysa haday tahay markaasi garoonka laftiisa haday tahay dhismayaasha isticmaalayeen muddada uu dhamaado markaasi heshiisku ee ay ka baxaan waxa ay dawladuhu la wareegaan ama aynu la wareegi doonaa waxa weeye xaruntii oo dhisan oo markaasi haday tahay airportka laftiisa isticmaalkiisa ama rayda inuu isticmaalo ama dana military inaga lafteena inuu isticmaalo dhismayaashiisi
haddii markaasi ay samaysteen kaawankii lagu tababarayo wax oo aynu inaguna hadhow tolo ka daba faa'iidayno kaasaynu ka faa'iidi doonaayo ka mid a qodobada hadhow tolo laga faa'iido marka ay ka baxaan inta ay joogaan bay noqotay waqtiyada ay joogaan haddii jaraale wax laga faa'iido waxa ka mid ah inay abuuraan shaqo abuur shaqooyinka ay abuurayaan dhowr siyaad u dhacaan mid waxa ku dhacaan mid lagu dirqiyo oo marka horeba heshiis ku jirto oo ay ka mid tahay in ay intaasoo shaqaalaha matalan qaataan ama waddankooga ha u qaadaan marka talan oo hala weydaarsado amaba xarunta lafteeda ha ka shaqeeyaan waxaa kaloo iyaguna jira cid kale oo ka iibisa ama adeegyada ay u baahdaan markaasi u fudaydisa oo iyaguna markaasi qandaraasiyo si individual oo shacbiga u hela kuwaas iyaguna faa'iidadooda ay kusoo noqonayso bulshada dhexdeeda waxaa kaloo iyaguna jira dhinaca markay noqoto dowladnimada ciidamadeena qaranku waxay ka faa'iidi karaan tababarada ay sameynayaan inay qaar sii wada jira ama mid ay iskugu jiraan in labada ciidan kuwa meesha karaystay iyo kuweena kale ay wada sameynayaan iyaga oo markaa karoorsanaya khibradaha ay leeyihiin oo meel walba khibrad gaara ayay leedahay oo haddii jaraale tusaale ahaan cid wal oo ciidan oo adduunyada joogta waxa la dhahaa waxbaa looga dambeeya hamoodin uun in iyaga uun wax laga karoorsanayo laakiin waxa laga yaabaa wax badan oo ka mid ah oo ku sababan deegaanka iyo dhulka aynu haysanno in ciidamadeenu ay uga khibrad badan yihiin kuwaana inay ka faa'iidaystaan innaguna aynu ka faa'iidaysanno tababaro kale iyo agabka ay isticmaalayaan oo laga yaabo inay inala wadaagaan oo taasina noqoto dhiirigelin iyo horumar kale oo faa'iido ugu jira dalka laftiisa